Okay, waxaan arkaynaa Adobe Experience iyadoo casharka aan maanta ku jirno uu yahay sidaan u samayn karno shaararka iyo dharka sidaan ugu qori karno qoraal xayeysiisa kadibna aan ugu soo bandhigi karno social media si loo iibsado iyadoo casharo fara badan aan baran doono animation baan u samayn doonaa step step baan u qaadan doonaa casharkan wuuna noo soo bilaaban doonaa halka qoraalkeennii baan ka bedelaynaa waxaan u bixinaynaa haddii aan rabno af Soomaali haddii kale textile waa funaanadaha caruurta marka waxaan u bixinaynaa textile waxaan kaloo dhahaynaa good cloth okay save baan dhahaynaa qoraalkeena halkaan uu ku jiraa marka farta ayaan bedelaynaa sidii dhexdeena kaga jiraan raafraanida ku qornaado sida shaabadoo kale foontigaan dooranayaa foontigii baan sii quruxsanayaa foonti colorna waan dooranayaa ogow intaba shaqada halkaan ku qabanayaa foontiska markaan doorto foontiskii baa iisoo wada baxayo okay waxaan dooranayaa foontiska colorka ah colorkaan fartii kusoo baxayso waa inaan raadiyaa edhitkii oo qoraalka waa sameynay mar alla markaan sameynay foontiskaan dooranay foontiska mar alla marka aan dooranay foontiskeenii waa yaraynay markaan foontiskeenii yaraynay waxaan rabnaa foontiska kalarkiisa inaan iska saxno ama uu fonti coloris uu noo noqdo sidii shaabadoo kale inaan ku dhufanay ee oo kaataa rabaa markaan textiga soo qaad textiga markaas soo qaadid adjust text size buu ii saxan yahay uu ku fadhiyo letters qoraalkii waa soo yaraynayaa uu kaa weynaynaya dii kale uu ka baxayaa meesha waa ka aan yareeyay okay farta marka centerkaan dhahayaa centerkii kaga taalaa okay waa dhan colors baan dooranayaa foontigii colorkaasaan siiyey colorkii baan bedelayaa foontigaygii colorka haddaan rabo jaalaan ka dhigayaa foontiskii ama blue color uu kusoo baxayo foontii farta color ay kusoo baxaysaan rabaa deetana waa yaraynayaa marka qoraalka funaanada ku qor waa yaraynayaa dhan baan dhahayaa good cloth textile good cloth marka waa save garaynaynaa animation iyo waa isaga imaan doonaa resizing baan bilaabaynaa sizekeeda inaan yarayno marka waxaan dhahaynaa share ama waxaan dhahaynaa preparing your projectgeeni baan dhisaynaa marka maadaama funaanadaan soo dooranay no thanks waan iska dhahayaa kana share baan dhahayaa waa sii share garaynayaa la soco whatsapp baan ku dirayaa ama waa save garaynayaa ama more inaan dhaho baan Facebook iyo waxaan rabo dhigi karaa haddii kale waxaan dhahayaa share to whatsapp waa fahaneyntaa haddaan save gareeyo way save garaysmaysaa okay waxaan baranay sida dharka aan ugu qori karno qoraal iyadoo hadhowdina aan printify sida loo isticmaalo kale waaye iyo adiga sida loo edit gareeyo habka dharka iyo loo edit gareeyo ayay qayb ka tahay ka preparing your project okay waxaan arkaynaa Adobe Experience iyadoo casharka aan maanta ku jirno uu yahay sidaan u samayn karno shaararka iyo dharka sidaan ugu qori karno
qoraal xayeysiis ah kadibna aan ugu soo bandhigi karno social media si loo iibsado, iyadoo casharo fara badanna aan baran doono. Animation baan u samayn doonaa, step step baan u qaadan doonaa casharkan, wuuna noo soo bilaaban doonaa. Halka qoraalkeennii baan ka bedelaynaa, waxaan u bixinaynaa haddii aan rabno af Soomaali, haddii kale textile waa funaanadaha caruurta. Marka waxaan u bixinaynaa textile. waxaan kaloo dhahaynaa good cloth, okay. Save baan dhahaynaa, qoraalkeena halkaan uu ku jiraa. Marka farta ayaan bedelaynaa sidii dhexdeena kaga jiraan raba funaanada ku qornaado sida shaabadoo kale. Foontigaan dooranayaa, foontigii baan sii quruxsanayaa, foonti colorna waan dooranayaa. Ogow intaba shaqada halkaan ku qabanayaa. Foontiska markaan doorto, foontiskii baa iisoo wada baxayo. Okay, waxaan dooranayaa foontiska colorka ah. Colorkaan fartii kusoo baxayso waa inaan raadiyaa. Editkii oo qoraalka waa sameynay. Mar alla markaan sameynay, fontskaan dooranay. Fontska mar alla marka aan dooranay, fontskeennii waa yaraynay. Markaan fontskeennii yaraynay, waxaan rabnaa fontska colorkiisa inaan iska saxno, ama uu font colors uu noo noqdo sidii shaabadoo kale inaan ku dhufanay ee oo kaataa rabaa. Markaan textiga soo qaad, textiga markaas soo qaadid, adjust text size buu ii saxan yahay, uu ku fadhiyo. Letters qoraalkii waa soo yaraynayaa, uu kaa weynaynaya, haddii kale uu ka baxayaa meesha. Waa kaa aan yareeyay. Okay, farta marka centerkaan dhahayaa, centerkay kaga taalaa. Okay, waa dhan. Colors baan dooranayaa, fontigii colorkaasaan siiyey. Colorkii baan bedelayaa, fontigaygii colorka haddaan rabo jaalaan ka dhigayaa, fontskii ama blue color uu kusoo baxayo. Fontii farta color ay kusoo baxaysaan rabaa. Deetana waa yaraynayaa, marka qoraalka funaanada ku qor waa yaraynayaa. Dhan baan dhahayaa, good cloth textile, good cloth. Marka waa save garaynaynaa. Animation iyo waa isaga imaan doonaa. Resizing baan bilaabaynaa, sizekeeda inaan yarayno. Marka waxaan dhahaynaa share, ama waxaan dhahaynaa preparing your projectgeennii baan dhisaynaa. Marka maadaama funaanadaan soo dooranay, no thanks waan iska dhahayaa, kana share baan dhahayaa. Waa sii share garaynayaa, la soco. WhatsApp baan ku dirayaa, ama waa save garaynayaa, Okay, ama more inaan dhaho baan Facebook iyo waxaan rabo dhigi karaa. Haddii kale waxaan dhahayaa share to WhatsApp. Waa fahaneyntaa. Haddaan save gareeyo oo ii save garaysmaysaa. Okay, waxaan baranay sida dharka aan ugu qori karno qoraal, iyadoo hadhowdiina aan printify sida loo isticmaalo karo waaye, iyo adiga sida loo edit gareeyo, habka dharka iyo loo edit gareeyo ayay qayb ka tahay. Ka preparing your project waa samaynaysaa, kadib waa save garaynaysaa ama waa share garaynaysaa. Waa share gareeyo this image. Okay.